Shirqoolkii dilkii taliya Abuukar qaabkii loo shirqoolay sargaalkan dhalinyarada ah kadibna loogu dilay gudaha magaalada Muqdisho. Magaciisu wuxuu ahaa Abuukar Muxudiin Axmed, da'diisu waa 31 jir, xilka uu hayay madaxa laanta warqabadka agaasimaha sirdoonka caasimadda. Xilligii uu ku biiraynaysa waxay ahayd 2018, qabiilkiisuna waa Hawiye Abgaal Wacaysle Cali Gaaf ayuu ka yahay oo waxa ay qaraabo dhow yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba waxaan rabaa inta aanan kula wadaagin qaabka shirqoolkiisu u dhacay, sidii loo dilay, habeenkaasi wixii dhacay, iyo sidoo kale cidda abaabushay shirqoolkiisa, inaan kula wadaago sooyaalkiisa waxbarashada iyo shaqada. Abuukar Muxudiin Axmed wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku qaatay waxbarashadiisa hoose dhexe sare, wuxuuna shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay Jaamacadda Soomaaliya, isagoona bartay cilmiga maamulka guud. Intii u dhaxaysay 2016 ilaa 18, Abuukar wuxuu baro dugsi sare ka ahaa qaar ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho kahor inta uusan si buuxda ugu biirin hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA sanadkii 2018. Heerkiisa shaqo ee NISA muddadii uu ka tirsanaa hay'adda sirdoonka, Abuukar wuxuu soo qabtay xilal muhiim ah oo isdaba joog ahaa. 2019 wuxuu xubin ka ahaa ciidanka ilaalada shacabka ee Raadka. 2020 waxaa loo bedelay waaxda sirdoonka caasimadda isagoo loo magacaabay xogeyaha xafiiska sirdoonka. 2021 waxaa loo magacaabay taliyaha nabad sugidda degmada Garisbaalley. 2022 wuxuu noqday taliyaha qaybta sirdoonka ee degmada Waaberi. 2025 waxaa loo magacaabay madaxa laanta warqabadka sirdoonka ee agaasinka sirdoonka caasimadda Muqdisho. Sidee ayuu u dhacay dilkiisu? Dilkiisu wuxuu ahaa dil halis badan oo shirqool ah. Shirqool amni oo lagu dilay Abuukar. Dilka Abuukar waxa uu ka mid yahay dhacdooyinka ugu halista badan ee si qorsheysan loogu beegsado saraakiisha sirdoonka, gaar ahaan kuwa haya xilal xog ogaal ah oo la xiriira la dagaalanka kooxaha argagixisada ah sida Shabaab iyo Daacish. Haddii aan faahfaahin ka bixino dhacdadan, taariikhdu markay ahayd habeennimadii 30kii bishii 7aad 2025, goobta degmada Hodan agagaarka isbitaalka Soomaali Sudaneys waxaa ka dhacay dil argagax leh oo lagu kacay taliya Abuukar. Qaabka shirqoolkiisu: dil qorsheysan oo loogu soo gambaday howlgal. Abuukar waxa uu helay wicitaan degdeg ah oo uga yimid taliyaha sirdoonka gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Gallad. Waxaa lagu wargeliyay inuu hogaamiyo howlgal gaar ah oo lagu wajahayo qabashada xubin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa degmada Hodan. Abuukar wuxuu hogaaminayay koox howlgal ah oo uu ka mid yahay sarkaal la yiraahdo Duceysane oo ka tirsan agaasinka dabagalka iyo 4 askari oo dhacda ah. Waxaa kale oo howlgalka horkacayay qof is soo dhiibay kaas oo sheegtay inuu ka goostay kooxda khawaarijta Al-Shabaab, isla markaana ku hogaaminayay halka laga qaban lahaa xubinta bartilmaameedka ah. Howlgalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa taliyaha laanta howlgelinta sirdoonka Cabdiqani Jiis oo door muhiim ah ku lahaa diyaarinta iyo dardargelinta howlgalka. Markii la gaaray meel u dhow goobta howlgalka, waxaa rag ka tirsan Raadka lagu amray inay xabad la dhacaan isu soo dhiibaha iyo taliya Abuukar oo meel gaar ah taagnaa. Amarka waxaa bixiyay Cabdiqani Jiis, waxaana markiiba xabad lagu bilaabay Abuukar iyo isu soo dhiibaha. Taliya Abuukar iyo isu soo dhiibihii ayaa orod ku baxsaday. Abuukar wax dhaawac culus ah ayaa ka soo gaaray caloosha, halka isu soo dhiibihii uu si nabad ah uga baxsaday goobta. Markiiba isagoo cararaya ayuu isu dhiibay ciidamo boolis ah oo halkaasi ka dhawaa. Intaasi kadib maxaa dhacay? Taliya Abuukar wuxuu ku dhacay meel 800 oo mitir u jirta halka uu ka soo cararay, waxaana goobta isaga tegay dhammaan ciidankii iyo saraakiishii halkaasi joogay, loomana gurman. Taliya Abuukar waxa uuna u dhintay dhiigbax kadib markii muddo saacado ah uu halkaasi yaalay. Meydkiisana waxaa la qaaday 8 saacadood kadib xilligii loo geystay falka, mase dhaawacu soo gaaray. Xabadda lagu dhuftay waxay ku dhacday abaaro 9kii habeenimo ama 3 saac oo habeenimo sida loo yaqaano. Kiis hore oo lala xiriirinayo Cabdiqaadir Jiis ayaan rabaa inaan idin faahfaahiyo. 2 asbuuc ka hor, howlgal uu waday Cabdiqaadir Jiis oo ka dhacay agagaarka ceelasha biyaha ayaa lagu bartilmaameedsaday gaari lagu tuhunsanaa inuu qarax siday. Howlgalkaasi oo habeen fiid ah dhacay, Cabdiqani Jiis ayaa amar ku bixiyay in gaariga lagu furo rasaas iyadoo aan la xaqiijin xogta iyo sidoo kale waxa saaran gaarigii. Gaarigii waa la burburiyay, balse waxa saarnaa waxay noqdeen dad shacab ah. 1 qof ayaa ku dhintay, 2 kalena way ku dhaawacmeen. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhammaan waxay ka soo jeedeen hal qoys. Dhacdadaasina waxay noqotay mid lala yaabo.
tuhno amni oo ku saabsan Cabdiqaadir Jiis. Cabdiqaadir Jiis waxaa jira tuhmo xoogan oo sheegaya inuu si dadban ula shaqeeyo Macalin Saalax, taliyaha ciidanka dharcadka ah ee ilaalada shacabka. Waxaa la rumaysan yahay in Macalin Saalax uu heshiis la leeyahay kooxda Al-Shabaab isla markaana uu siiyo xogta saraakiisha muhiimka ah ee NISA. Waxaa sidoo kale jirta cabsi laga qabo in Macalin Saalax uu si ula kac ah u qorsheeyo dilalka saraakiisha muhiimka ah marka uu helo fursad ku habboon. Qiimeyn amni iyo falanqeyn ayaan rabaa halkan inaan kugula wadaago. Qaabka dilku u dhacay waxay muujinaysaa in saraakiisha sirdoonka la beegsanayo iyada oo siyaabo kala duwan loo beegsanayo. Isa soo dhiibaha waxaa jira tuhun xoogan oo muujinaya in isa soo dhiibuhu uu ahaa qof loo adeegsaday shirqoolka khasaaraha sirdoonka qaranka. Dilka Abuukar waxa uu furo u yahay khatar weyn oo wajahaysa guud ahaan sirdoonka qaranka. Saldhigga dilalka haldoorka. Markii aad ka hadlayso qarax, dil ama shirqool loo geystay sargaal muhiim u ah qaranka, waxaa lagama maarmaan ah inaad xasuusnaato magaca Xasan Daahir oo ah sarkaal hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ka tirsan, horeyna khawaarijta uga tirsanaa jiray oo sheegay inuu kasoo goosto. Xasan Daahir hadda wuxuu ka tirsan yahay waaxda dabagalka. Dilka Abuukar habeenkii uu dhacay isla subaxnimadii Xasan Daahir wuxuu u baxsaday dalka Kenya. Xasan Daahir 2 asbuuc ka hor wuxuu gaari ka dhacay shirkadda gaadiidka kireysa oo ay leeyihiin wiilal uu dhalay Allah u naxariistee Xirsi Cabdi Cilmi oo loo yaqaano Xirsi Lugey oo ahaan jiray taliyihii ciidanka maxkamadaha Islaamiga ee Muqdisho oo la dilay 20 sano ka hor 12 Julaay sanadkii 2005. Hadda waxaa xiran askartii dilka fulisay balse ma xirna saraakiishii dilka amartay sida Saalax, Jiis iyo Xasan Daahir. Shakhsi ahaan qoraagu wuxuu yiri waxaan si buuxda ugu garwaaqsanahay in Xasan Daahir uu halis amni ku yahay nafta madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha dalka iyo taliyaha xoogga. Tilaabooyinka hadda ay qaadeen hoggaanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa bilow fiican. Dabcan barnaamijkan waxa uu leeyahay qayb labaad waxaana qoray gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali waxa uuna si qoto dheer uga hadlay dilka loo geystay sargaalkan dhalinyarada ah oo si argagax leh loogu dilay magaalada Muqdisho. Waxyaabaha kiiskan tuhunku u dhaliyay waxa ay tahay in dilkiisa marka la sheegay in taliyihii howlgallada hogaaminayay markii ciidamadu ay ku soo laabteen beyska ee weerar ka qaadeen kadib la ogaadaba taliyuhu inuu maqan yahay. Waa arrinta shakiga keentay. Macquulna ma ahan taliyihii amarka bixinayay oo dhahayay qofka hal la qabto hal laga soo baxo isagoo aan lahayn in howlgalkii laga soo baxo. Ciidamada markay soo baxayeen yaa amar ku siiyay in howlgalkii ay ka soo baxaan haddiiba taliyuhu uusan la soconin. Marka waxyaabaha shakiga dhaliyay taas weeye. Haddana baaris ayaa socota, ciidamadii qaarna waa la hayaa. Bal Part 2 wixii ka soo baxa muuqaaladan dambe ayaan kugula wadaagaynaa. Fadlan share garee saaxiibada la wadaag. Haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir waa mahadsantahay.